بسم الله الرحمن الرحيم. واد mahadsantiin saxaafadda Soomaaliland waraysigan waxaan dalka u imid arrimo la xiriira shaqo cusub oo aan bilaabay oo ku saabsan sidii khilaafaadka ka jira siyaasiga ee ka jira qaaradda Afrika meelo fara badan oo kamid ah loogu dhameyn lahaa hab amni ah oo nabadgelyo ah sida laga warqabo meelo badan oo Afrika ka tirsan waxa ka jira qalalaas siyaasi ah mid military iyo colaado xagga amniga iyo siyaasadda khuseeya marka aniga iyo khubaro kale ayaa waxa loo xil saaray inaanu ka shaqeyno sidii aanu si amni ah oo nabadgelyo leh oo ay ka muuqato in xal siyaasi loo heli karo mushkiladaha meelo badan oo Afrika ka tirsan sidii loo dhameystir lahaa arintaas aanu mid halkana Soomaaliland si fiican baa la igu soo dhaweeyay intii aan joogayna waxaan kulan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinayo oo sida laga warqabo wada shaqeyn dheer iyo hawlo fara badan oo wanaagsan baan ka wada shaqeyn jirnay imika shaqadeedan cusub awgeed aan madaxweynaha kulan ula yeeshay si aanu afkaarihiisa iyo taladiisa aanu wax weydiino madaxweyne Axmed Siinayo wuxuu kamid yahay odayaasha qaaradda Afrika gaar ahaan mandaqada Geeska Afrika tala iyo arrin ba laga weydiinayo sidii mushkiladaha siyaasiga ee mandaqadan ka jira oo tala uga dhiiban lahaa iyo arrimaha Soomaaliland dalka madaxda ka yahay iyo Soomaaliya ka dhaxeeya marka arrimahaasina si wanaagsan ba madaxweynaha arrimaha uu talooyin badan iyo aaraab uga bixiyay waxa kale oo la kulmay mudanayaal ka tirsan golaha guurtida iyo qaar ka tirsan hogaamiyaasha asxaabta qaranka oo intaba aan talooyin iyo afkaar weydiinayay ku saabsan xalinta khilaafaadka Afrika ka jira qaarkood Soomaaliland waa dal ka soo baxay burbur siyaasadeed iyo mid nabadgelyo imikana wuxuu ku caalamaalay nidaam siyaasi ah oo leedahay Soomaaliland institutions dhaqan haday guurti tahay haday tahay golaha wakiilada haday tahay odayaasha haday tahay salaadiinta iyo mutacalimiinta kala dalkuba waxay muujiyeen xirfadda iyo waaragnimada ay u leeyihiin xalinta khilaafaadka siyaasiga marka sidaas muhiimad u tahay in casharo laga barto arinta dhinaca kale waxaan jecelahay halkan in aan uga soo jeediyo bogaadin iyo hambalyo sidii golayaasha siyaasadda ee dalku Soomaaliland ay dhawaan u soo afjareen khilaaf siyaasadeed oo golaha wakiilada ka curtay arintaasina waxay mar labaad muujisay adduunkana u muujinaysaa sida ay dadka reer Soomaaliland ay aqoonta iyo xirfadaba ugu leeyihiin isku tanaasulka iyo xal u helidda mushkiladaha dalkooda halkan Soomaaliland ka dhici kara arintan aad baan ugu hambalyeynaya دكتور واحد لو قلنا عامل أرجع ميدو يوروب يميدو أفريقيا وقابل السنة وضمنا قرلا سوق كشري أفريقيا واحد يوزير كوري رماد وده مركين بلا دكتور حين كان لو قلنا عابي سومبانا اللي كتاعن تيسير هذه الساقونس ما هي سومبانا كتركت Soomaaliland وضل أمنية والنباتجرية نظام ديمقراطية oo ay siyaasadda ku maamulaan samaystay arinta dunida aad bay ugu faraxsan tahay taageero fara badan adduunku ka bixiyay haday tahay xagga mucaawinooyinka Soomaaliland la siiyo markaad eegto iyo iskaashiyada kale ee dunida la siiyo hase yeeshee shaqadan anigu aan qabanaya shaqo waxa weeye adduunka iyo gobolka Geeska Afrika ay Soomaaliland dadka reer Soomaaliland ka mid ka yihiin ku saabsan sidii loo nabadeyn lahaa xal loogu heli lahaa waxaan rajeynayaa wada hadallada marka su'aasha u soo noqdo Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaxeeya oo kale matalan oo anigu baan kamid ahaa raggii hormuudka u ahaa arinta bilaabay ee sameeyay in ay noqoto dariiqa ugu wanaagsan xal siyaasadeed oo wanaagsan oo wax ka tari kara labada geesood ba wax tari kara in uu ka soo baxo marka waxaan rajeynayaa arrimahaas inay noqdaan arrimo wax tara shaqadeeduna waxa weeye sidii xal loogu dhameyn lahaa khilaafaadka Afrika iyo Geeska Afrika ka jiro oo arrimahan ay ka mid ka yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya markaan eegno midowga Afrika midowga Yurub maanta shaqada aad la qabanayso Soomaaliland maxay u yaqaanaa madaqan laasi ka jiro bisadan labada u yaqaanaa
somaliland adduunku wuxuu yaqaanaa dal ummad samaysatay nidaam siyaasiya oo ay ku kala nabad galaan iyagu dadka ay jaarka leeyihiinna si wanaagsan oo amniga kula noolaada dabcan qadiyadda siyaasiga ee somaliland weli ma helin ictiraaf siyaasadeed ma helin arrintaasi waa arrimo somaliland ay iyo soomaaliya iyo wadamada kale caalamkuba ay afkaar iyo talooyinba ay kala yihiin hase yeeshee somaliland dunidu waxay u taqaanaa ummad nabadgelyo samaysay dawlad wanaagsan samaysatay jaarka iyo dalalka ay jaarka leeyihiinna iyo dadka ay jaarka leeyihiinna si amni ah oo wanaagsan